magacii waa Abdicasiis Xasan Axmed waxaa ka socda jaamacadda Zamzam qalabkan waxa waaye baawurtan waxa la ultrasonic oo samaysan yahay autonomous baawur autonomous car kan waxa la remote control car oo loogu talagalay in remote lagu controlo kan waxa waaye drone caadi artificial intelligence oo beeraha in lagu waraabiyo loogu talagalay salahan drone-tan hadda kaamiradeedan ka soo furnay waxay sameynaysaa beerta lagu kordulna object detection waxa lagu develop gareey sawir ka qaadaysa beerta waxay soo diraysaa information-ka beerta macnaha hadii insect ku jiro hadii maxallahay buufin u baahan tahay hadii ay u baahan tahay sun waxyaabaas information-ka ku soo diraysaa waxay leedahay web interface oo laga arkayo xogtaas markay sawirka ay qaado min bilow ilaa dhamaadna waxa lagu sameeyay jaamacadda lagu sameeyay midaan sidoo kale waxaan lagu control doonaa baasha markay biyo la biibinayo macnaha remote-keeda waa drone-ta iska leh sidoo kale baawurkan waxa lahaa remote control car lahaa ujeedka baawurkan loo sameeyay waxa waaye marka hore ardada lagu train gareynay sida loo sameeyo electric car sababtoo wadanka ma lahan macnaha capacity oo inay la sameeyo adduunkana meelaha loo dhaqaaqo way kamid tahay marka remote-kan lagu controlaa wuxuu awood u leeyahay ardayga inuu dhanka hore u wado basic control-ka oo remote-ka si wax loogu control waxyaabaha ku barnaa marka remote control car lahaa sidoo kale baawurkan waxa waaye autonomous car waaye iyo remote iyo mobile control car sababtoo waxa laga controla teleefankeyga sidoo kale waxaan ka controlaynaa autonomous uu yahay kaligiisa is wadaayo wuxuu leeyahay ultrasonic darbiyada oo kale xana intelligent waaye meesha hore ka baxaa sidoo kale kan waxa la input waxa lagu talagalay kit waaye ardayga basic ah lagu talagalay inuu wax ku barto bilawgii waxa laga yaabaa inuusan waxyaaban aqoonin waxa la tusaa kan wuxuu ku train gareynaa code ku shubaa left right waxyaabahaas ku barnaa markuu ku barto then wuxuu awood u yeelan doonaa inuu baawurtan oo kale u sameeyo drone-ta waxaa jiro smallest project oo ah midkan oo indhoolayaasha lagu talagalay smart blend lagu waa project yar waaye saan hadda ma dhamaystirno waa project duty oo u baahan in la sii develop gareeyo hadda wuxuu intelligent ku yahay wuxuu leeyahay qayb oo marka qofka object u dhawaado oo sheega u soo wata marka meel ku darsaro oo qeylina marka allaha smart lugta smart mahagayso kaliya waxay u sheegaysaa in hortiisa object yaal am dad taagan yahay am shay u yaal u sheegaysaa projectyadan mostly based waxa waa student waa arday ayaga sameeyaan jaamacaddu waxay leedahay qayb innovation center oo technopark la dhaho robotics lab marka ardayda training qaadanayaan casharo training markay qaataan dan waxay loogu talagalay inay sameeyaan projectyo marka projectyadan u jeedin dhamaan ardayda sameeyso projectyo oo student based oo innovation kooda ay ku soo bandhigeen waxay ka samaysan yihiin tusaalahan hadda ka soo bilaabo mid walba hadda fiirs waxa ku jiro baalkan waxa la microcontroller waa maskaxdii koodka ku jirto sababtoo waxa lagu shubi doonaa remote-kan in la taabto oo dhanka hore u sikado waxa awood u yeelayo koodka marka koodka inta ku jira inta lagu shubaa fiila inta laga gelin doono computerka meesha uu qaadana kan waxa wuxuu samaysan yahay motor controller lugahan koodka inta laga soo qaaday lugahan asaa u sheegay intuu leexo dhankan u leexo waa motor controller kan waxa Arduino shirkad waxa iska leh Talyaaniga ka sameeyay open source oo microcontroller marka ka soo sameeyay sidoo kale wuxuu samaysan yahay receiver remote-ka always waan qana receiver iyo remote ku weeyay data receiver-kan soo gaaray xogta waxa u diraysaa kan marka inoo socdo ma jidad marka gacanteedu u dhigi fiiriyo object da kor imaado oo istaaga ma jidad geeso iska fiirnaa jidad dhamaan wada shaqeynayaan